بسم الله إن شاء الله الدرس يقول حكوسها بسيسا والالكو شاقي إصلاح ذات البين أما هقاتشين لها هقاتشيو ذات البين كلمة الذات صاحب البين واحد هذا في اللغة العربية ومن المتضادات وكلمات كمعنى اسكسور تشيدله الفرقة والوصل ولا بضب ويد هذا على كل حال وإن لها هقاتشيو ضدك مسلمين تاه waxa u dhaxeeya dhexdooda dhibta Allah asalku waa dadka muslimiinta inay ku wada noolaadaan al-quwwa walaalnimo bale bini aadamku dhan bay asal u tahay at-taayush silmi inuu insaanku nabad ku wada noolaado laakiin laba cilaba waa jirtaa mid ninkii la inagu itixaamay ibliis ahaa والشقاق يا خلافك وياهي أخطر الأسلحة هبك وجوينا وهايستو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحكوت المام إنه كقوسطي إن جزيرة العربية مدول كان مسلمين تدقان إن لقوا عابد إلهي غيرك لكن التحرش بينكم إنه ولي شقدي سطي أما حديث قار كودو تلمامي النبي عليه الصلاة والسلام إنه إبليس كوجويني بضع كرسي دكتوه oo ciidamo u soo daayo oo ciidamadaasi dadka muslimiinta ay dhex galaan iyo baadamaha balumiyaan dabeetana kuwa ugu soo dhaweyn badan yahay inay kamid tahay kareeraha isku dira guriyaha iyo xaafadda ka isku dira inuu kamid yahay kuwa abaalmarka ugu weyn la siiyo uu soo dhaweeyo kaasi dhan buu jooga dhan labaadna bini aadamku malaa'ig ma aha muslimiintuna waa bashar yukhti'uun wa yusiibuun ويعسر أن تتفق آراؤهم وإحنا واسكو وافقان إحنا واسكو خلافا يعني وحوا خطأ وقدعيا وحوا أصيبا يا وبني آدم تسوحي كان سنة سين رأيي إنه كلا نوع نقضه وحيد هذا سيدا بني آدم كوجيدي سوك للنوع ينبا آرادي سنوك لقد سنتي سيدا قفوا لبا عالم قاروي هاي بركة وجهي صلى الله أيام مسكحة كدام بيسانا عالم قاروي haddana sidaa aynu bini aadamka una isku wajiga u wada nahay ayaa waxaynu wada wanaagno aaraayna jiraya bini aadam baynu wajiga ka wadano nin walba laba indhood iyo san iyo af iyo laba sunniyood iyo intaas uu leeyahay xaggana waa isaga wada eegnay idan waana isu eegnay waana kala gadisanay aqliga bini aadamka iyo aaraadiisa si uu fakarayana waa sida waana isu eeg yahay waana kala gadisan yahay wuxuu ku kala gadisayna waa jiraan waxa kale oo inta dheer masaalixda bini aadamka waa kala masaalix waxaasoo dhamme waxay keensanayaan iyaguna in dadku khilaafaadku ay jiri karaan haddaba khilaaf kastoo jira shareecada islaamigii marnaba ma bannaynin taqaatuca in la isgooyo waxaa kuugu filan inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim warinayo albaabada jannada ayaa la furaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista dabeetana ilaahay waa u dembi dhaafaa qof kasta oo addoomihiisa ka mid aan cidna ugu shariig yeelaynin laba nin mooyaane buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba iyagu maalintaa isniinta iyo khamiista arrinkoodu dib loo dhigaa labadani maxay sameeyeen waxaa la yidhi waa ilaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa qof isaga iyo walaalkii colaad iyo dhib iyo muran uu dhex yaalay qoladaa waxaa ilaahay yidhaahdaa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa labadan arrinkooda dib ha loo dhigo intay ka heshiinayaan baa la yidhaha labadan arrinkooda dib ha loo dhigo idan weynideeda waxaad ka garanaysaa dadku inuu isqabto oo kala go-o oo murmo xumaanta ay leedahay waxay keensanaysaa acmaashaadii khayrka ahayd in la aqbali waayo inaad noqoto kuwa alla u dembi dhaafaya in lagaa reebo ilaa iyo ninkan heshiisaan waxaana macruufa xadiidkii ku yaalay sunan abu daawuud iyo ibnu maajaan rajaynaya iyo keyrkoodba sheekh albani saxiixa ku tilmaamay wuxuu nebigu leeyahy man hajara akhaahu sanatan fahuwa kasafki dami ama hajru lmuslimi kasafki dami riwaayadda kalena waa soo aroortay adab ilmufrad lilimaam albukhaariy calaa kullin xadiidku waxa uu tilmaamayaa inaad walaalkaa goyso shaxnaa bay tii hore ahayd colaadiyo inay dhex taallo inaad goyso muqaataca ku samaysaana
waad ka hijrootaana sanad inaad hijro iyo cadho iyo dudmo ku maqan tahayna inaad dhiiggiisa qubtay la mid tahay buu nebigu leeyahy alayh isalaatu wasalaam dhiig qof muslimoo la daadiyaana waxaynu garanaynaa sida uu weeyey haddaba bini aadamku kala tagga kuma habboona qofka muslimkaana aakhiradiisa iyo adduunkiisa midnaba faa'iida uguma jirto colaaddu idan waxaa loo baahanya in colaadda laga tallaabsado bini aadamka isqabadkiisu maraaxisha uu maroo dhan islaamku markaa qaab loo farsameeyo oo colaaddaa iyo dhibtaa iyo cadhadaa iyo ishayntaa loo saaro ha ahaato maraaxisha hore hadday maraysee ah xoogaaga murankaa iyo caloolxumada ama maraaxisha ku xigta hadday gaadhe ah alhajru waatabaacud in la kala guuro ama la isgooyo ama maraaxisha ugu dambaysa hadday gaadho ah in la isdilo oo la isku xadgudbo intaba islaamku xal buu u sameeyey idan mawduuca in dadka la heshiisiiyo oo la walaaleeyo waa mawduuc islaamka aada ugu weyn walaalayntaasina raadna waa ku leedahay nolosha qofka muslimka ah ka fardi ahaan qof ahaan iyo bulsho ahaan qabiilo ahaan shirkado ahaan dowlado ahaan iyo shucuub ahaan mid kastaba raad bay ku leedahay ishaynta iyo muranku sidaa ogeed baa shicaar qur-aanku wuxuu ka dhigay wasulxu khayr baa ilaahay yidhi wasulxu khayr sulxi dhammaantii sulxi sharciga waafaqsane waa khayr baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala heshiisku in la heshiiyo oo dadku iscalool xaadho oo ishuur maydho oo walaaloobo oo la heshiiyaa waa khayr buu ayuu qur-aanku tilmaamaya rabbi subxaanaه wa tacaala aadanaha maanta noolla tajaaribta nololeed waxay bartay fikirka qaanuuniga ee caalamiga ee maantu inuu u janjeedho naxو الsulxi wاlmufaawadaat inuu bini aadamku heshiiyo oo gorgortamo oo aanu colaad iyo xoog iyo ismuquunin ku xallilin dhibaatooyinka dhexdiisa dhacda walidaalika maanta duwalka dunida jira waxay leeyihiin xafiisyo u furan inay ummadda heshiisiiyaan reeraha isqabta cidda muranta cidda waa consulting waa dad loogu talagalay inay dadkaa heshiisiyaan ciddaysa xafiis bay tegaysaa waxaanay u tegaysaa xafiiskani mediation ku yaqaanaa sida dadka loo dhex galo farsamadaa dad yaqaano weeyaan marka wuxuu isku kiindayayaa inuu isu kiin keeno xataa maxaakimta waaweynee dunida waxay isku daydaa qofka intaan xukumka la ridin oo aan garnaq iyo xukum la gaadhin in dadka musaalaxa laga raadiyo oo looyaradooda la isu diro oo la yidhaahdo bal inaad musaalaxo samayn kartaan dib u noqda waana masaladii cumar bn اlkhaaab uu lahaa radia allahu canhu wa ardaa ahar baa laga sheegaa uu leeyay raddu اlkhusuuma xataa yasطalixuu faina faslu اlqadaءi yuuriثu baynahum اdaqaa'in cumar bn اlkhaaab waxaa laga sheegay inuu yidhi qudaaddu wuxuu leeyahay dadka ishaya bal dib u celiya intay ka heshiinayaan waayo waxaaba laga yaabaa xukumka qaadiga iyo maxkamaddu inaanu dadka laabtooda maydhin walow xuquuqda uu rido yani waxay yidhahdaan culammadu alqadaءu radd اlxuquuq buu sameeyaa sulxiguna waxay yidhaahdaan radd اlquluub buu sameeyaa qadaagu xuquuqdun buu kala gooyaa laakiin waxay leeyihin heshiisiinta iyo sulxiga iyo dhexdhexaadintu quluubta dadkay dib u walaalaysaa idan ayuha alaxiba khilaafka iyo muranku waa xanuun waxa laga dhaxlana uu yahay dacfi iyo liidasho iyo tamar darro sulxiguna waa dawo waxa laga dhaxlaana uu yahay naxariis iyo quwo heshiisiintu markaa in dadka la heshiisiiyaa umamka dhaqan ahaan iyo taqaalid ahaan dad baa u quma dad baa u kaca dadkooda ahlu caqligaa dadkooda cuqaashaa dadkooda salaatiintaa dadkooda waaya araggaa waxay ka dhigan yihiin dadkaasi bulshada dhaqankeeda marka loo eego waxay uga dhigan yihiin addifaac ilmadani qoladan maxaa la yidhaha debdemiska marka meel dab ka dhacba niman baa loo yadhaa debdemis la yidhahdo markiiba demiya dadkan waayeelka ahi ummadda waxay u yihiin waa debdemis khilaafaadka iyo muranka iyo isqabsiga iyo isdilka iyo reeraa kala furmaya iyo waxaasoo dhamme waa xaraa'iq bulshada ku huraya hadday bataana bulshadaasi way gubanaysaa bulshadu waa gubanaysaa ugu dambayn
dabdamis cidda ka ahi waa waayeelka waa cuqaasha waa salaatiinta waa culammada waa waxgaradka waa dadka heeganka u ah inaanay ummaddu gubanin inaan ummadda dabku wada qabsanin ayuha alaxiba bini aadamku hadduu isqabto siyaabo badan buu isku dayaa inuu xalka u gaadho bini aadamka badh wuxuu isticmaalaa win-win situation waxay yidhaahdaan meel dhexayn la isugu yimaado adna aad guulaysato adna aan guulaysto nin la jebiyey iyo nin jabaytoonaya inaanu jirinee la heshiiyo maa ilwajhiga in dadkao dhan loo ilaaliyo waa sulxigaa keena bini aadamka badhna zero sum game buu isticmaalaa wuxuu isku dayaa inuu awoodda wax ku muquuniyo waxay gaaladu yidhaahdaan qiso kutubtooda hore iyo waxooda ku qoranoo shamshum theory ay yidhaahdaan bay soo sheegaan shamshum theorygu waa qiso khuraafaadkii ahlu kitaabku yahuudiya waxaas ay rumaysnaayeen ka midoo waxay yidhaahdaan nin baa jiray xoog weynaa oo dadkan lagu jira ah marka wax kasta wuu dili jiray waxaa la yidhi war ninkan saynu isaga qabanaa waxaa la yidhi ninka kan xooggiisu timuhu kaga jira ee mar uun timaha laga xiiro aduu gabadh iyo waxbaa loo diray farsamo aakhirkii waxa lagu guulaystay bay yidhahdeen in madaxa loo xiiro markaa ninkii uu tamar beelay waxay yidhahdeen daba yuu inagu soo kicine indhaha laga rido kiniisadda ha lagu xidho intay labada indhood ka tuureen bay kiniisadda ku dhex xidheen isbuuc walbana mar baa timaha laga xiiraa maalinun baa markii dambe muddo la joogay la ilaabay bay yidhaahdeenoo timihii baa u baxay dabeetana xooggii buu gartay inuu soo helay maalin axadoo dee la isugu yimi meesha ayuu tiirarkii kiniisadda isku qabtay bay yidhahdeen wixiiba wuu ku dumiyey laakiin hadda isna waa ku dhintay waxba ma faa'iideen waxay yidhaahdaan calaya wa calayk aniga iyo adigaba waa ha la isla dhinto dadka badh baa in la isku madho xal mooda in la isku madho oo hadna dhimo anna aan dhinto khalaas reeru ha madhaan dawladu ha madhaan cid waliba ha madhato waa caqliga ugu liita kaasina waa caqliga ugu hooseeya ee bini aadamku uu xalka u raaco dadku markay isqabtaan saddex heer mid un bay maraan in cidi xuquuqdeeda ka tanaasusho التنازل عن الحقوق oo waa maxay waa waxa la yidhahda cafwiga inay cidi qaadato wixiisi inuu cafiyo inuu ka tanaasulo ma ahee in cid waliba xaqeedoo dhammaystiran doonto oo kaasina wuxuunbu ku suurto gelayaa qadaaga in la tago in ilaahay kitaabkiisa loogu gar noqo oo ciddii gar le garta la siiyo cidda kalena la yidhaha halkaa ka bax labadaa mid u dhexeeyaa jira markaa xaqoo kaamila inaad hesho iyo xaq oo dhan inaad ka wada daadegto meel u dhaxaysaa jirta waa meesha la yidhahda islaaxu daat اlbayn aw الsulx waa compromise waa adna wax ka taganaan wax ka tago labadeennuba aan guulaysanno meel dhexaan isugu nimaadno kii cafwiga taamka ana ma aha wax ka midaad cafwiday laakiin xuquuqdii o dhan kamaad wada tegin kii qadaaga ee lahaa cid walba xaqeedoo kaamil ha heshana ma aha waana inta badan bini aadamka ka ugu quruxda badan leh uu isku hayo waayo cafwiga dadka sare unbaa gaadha dad manaasishu taqwa dadka gaadhay ayuunbaa martabaddaa inta badan gaadha haddaba sulxigu fi shariica waa wax kasta oo dadkii ishayey murankooda lagu kor yeelo dadkii dagaalansanaa dagaalkooda lagu joojiyo ciddii xoolo ama dhiig ama wax kastaba ha isku hayaan ama diin waxay doonaanba ha isku hayaane in islaax iyo wanaag laga dhex raadiyo sulxiga alimaam ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyay sulxigu aqsaam buu u qaybsamaa waa sulxu lmuslimi maca alkaafir buu leeyay gaal iyo muslim in la heshiisiinayo ama guri in la heshiisiinayo islaan iyo odaygeedii in la heshiisiinayo sulxu bayna zawjayn ama imaamka muslimka ah iyo fiqo baaqiyo ku baxday in la heshiisiinayo dowlad iyo jabhad dowladdii sharciga ahayd shareecadu ogolayd iyo dad ka baxay oo ama qabiilah ama jabhada ama waxay doonaana in la heshiisiinaya bay leeyihiin sulxigu wuxuu kaloo dhici karaa fi ljaraaxaat in qisaasta lagaa cafiyo oo maal lagu bedelo dilkii lagaa daayo maga lagaa qaato waa nooc min sulxiga ka mid a
gacantii lagu goyn lahaa ama ishii lagaa ridi lahaa qofkaad ka riday uu ka tanaasulo oo maal uu ku beddesho. waxaa kaloo sulxiga la yidhaahdaa khusuumaadka dadku isku hayaane kale ee xoolo leh ee waddooyin leh ee baabkaa leh nisaaca in la dhammeeyo. haddaba fuqahada kutubtooda intaad aragto baabu sulxiga waa mucaamalaadka u dambeeya. ama sulxiga muslimiinta iyo kufaarka udhexeeya baabulhudna bay kaga hadlaan. sulxiga imaamka iyo buqaadda udhexeeya kitaabulbuqaad bay kaga hadlaan. sulxiga zawjaynka udhexeeya kitaabulqasmi wanushuus bay kaga hadlaan. idan kutubulfiqi markaad aragto baabu sulxigu abwaab iyo kutub tiro badan oo kale nooca ayuu ku jira. laakiin innagu waxaynu ka warramaynaa isagoo isku duuduuban, isagoo dhammaantiiya in dadka la heshiisiiyo, ama gaal iyo muslim ha noqoto, ama dowladda iyo inta ka soo horjeedda ha noqoto, ama oday iyo islaanti iyo ishaya ha noqdo, ama qabaa'il isdile iyo jamaacaad iyo kooxo isdile ha noqoto. dadka in heshiis laga dhex raadiya sulxigaas shareecadu wayna faraysaa. majaalaadka iyo mayaadiintiisaasi waxaa ka mid a ka ilaahay qur-aanka ku leeyahay wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraada. waa kii guriga hadday haweenay ninkeeda inuu ka tago ama ka jeesto ama isla weyri ka dareento falaa junaaha calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa. dhibi korkooda ma ahaan inay heshiiyaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala, inay heshiiyaan oo isu tanaasulaan oo waxyaabihii laysku hayay wax ka mid a laysaga tanaasulo. waxa laysaga tanaasulayaa waa maxay? waa bacd alxuquuq, waa xuquuqdii wax ka mid a qofku inuu ka tanaasulo oo dabeetana meel dhexa la isugu yimaado. ilaahay markaasi wuxuu leeyay wasulxu khayr, waar heshiiskaa khayrku ku jiraa baa ilaahay yidhi. haddana ilaahay wuxuu sii daba dhigay wauxdirat ilanfusu shux, naftana bakhaylnimadaa lagu xaadiriyey baa ilaahay yidhi. bini aadamku waa waxaygii xaqaygii buu taagan yahi, laakiin waa mansilo loo baahanya inaad ka korto. qofku markuu garaad iyo caqli yeesho ayuu waa waxayagii un haddaad taagnaato, waa beertaydii, waa dhulkaygii, waa waddankaygi, waa dowladnimadii, waa waxaygii un haddaad taagnaato way adag tahay inaad bini aadamka heshiisaan. laakiin nooc min atanaasulaat bini aadamku inuu isu dhimriyo, ilaahay wuxuu leeyahay nafta bini aadamka asalkeeda waxaa ah waa uxdirat ilanfusu shuxa. bakhaylnimada iyo shaxiixnimada iyo waa waxaygiidu way ku xaadirsantay. laakiin maxaa la yidhi wain tuxsinuu watattaquu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira. haddaa ixsaan samaysaan, ixsaanku waa atanaasul can bacdi alxuquuq, cadaaladuna waa inaad waxaaga hesho. haddaad ixsaan samaysaan oo alla ka cabsataan, ilaahay waxaa samaynaysaan waa arkaya. idan waxaa la leeyahay guryuhu qaanuun haddii la yidhaahda ha lagu dhiso keliya dhisbaba maayaan. hadday islaantuna tidhahda waxaan xaq u leeya o dhan wayn halkaa la dhigaa, odayguna yidhahdo waxaan xuquuq leeya o dhan wayn halkaa la dhigaa, labadaasi wada noolaan maayaan. gurigaasi wuu dumayaa. gurigu muxuu ku dhisan yahay? atanaasul. odayguna waxyaabaha qaarkood inuu indhaha ka laabto faa'iidooyin badan oo kale wiilan ku qabaaye. islaantuna waxyaabaha qaarkood inay indhaha ka laabato faa'iidooyin badan oo kale ayay ku qabtaaye. laakiin hadduu qof waliba yidhahdo waxaygii soo taago waa adkaanaysaa. idan sulxigu ilaahay wuxuu ina leeyahay war inaa islaax dhexdiinna raadisaan, dhibi kuma jirta baa ilaahay leeyahay. sulxigaana khayrku ku jiraa baa ilaahay leeyahay. sulxiga ayaa khayrku ku jira. falaa tamiiluu kula almayl fatadaruuha kalmucallaqa wain tuslixuu watattaquu faina allaha kaana gafuura raxiima. nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu soo dhaqaaqay, dabeetana gurigii inantiisii u yimi faatima. markaasuu cali ka waayey. cali xagguu qabtay baa la yidhi ayna ibnu camik. waxay tidhi de waa isqabanayo intuu cadhooday buu dudo u iska tegey. mid buu yidhi war bal cali ii raadi. cali baa la soo raadiyo masaajidka isagoo iska hurdaa la helay. qum ya aba turaab waa markuu naanaystaa nebigu u bixinayey. aba turaabow meesha ka kaco waa dhex galay nebigu calayhi salaatu wasalaam. idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa afraadda iyo jamaacaadka iyo kooxaha iyo cid kastaba in la dhexdhexaadiyo. bini aadamku isqabashadiisu wuxuu shalay ka tegey buu maanta dib u go'daayo isku qabtaa. bal u fiirso saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, waa dadkii u khayr badnaa. ilaahay dartii bay dhulkoodii iyo xoolahoodii iyo waxoodiiba ugu hijroodeen. socankaa maaha. hijrada waxay u galeen oo madiine u qabteen oo xoolahoodii iyo waxoodiiba uga tageen ilaahay dartii. laakiin dagaalkii ugu horreeyey markay galeen
waxoogaagii khaniimadee lasoo helay muran baa ka dhacay de waa nimankii shalayto ilaahay dartii uga yimi waxay xoolo iyo haysteen oo dhan iyo dhulkoodiiba oo ilaahay dartii u hijrooday iyo diinkooda inay ilaashadaan ayaa dagaalkii beder markii la galay waxoogaa xoolaa lasoo helay ayuunbaaba qaybteedii muran ka dhacay dadkii 3 qaybood bay u qaybsameenoo markii gaalada la jabiyey qola nebigay ku hadho way ilaalisay calayhi salaatu wasalaam qolana gaaladii jabtay dabada kaga dhacdo way sii eryatay qolana wixii gaaladu tuuraysay iyo xoolihii bay soo ururisay dabeetana qolana waxay dhahdeen de annagaa intan urursanay oo qaadanay qolana waxay dhahdeen war maydaan urursateen gaaladaanu naba ku daba jirnaye waa qaadan kari lahayn xoolo urursi haddaanu doonayno qaarna waxay dhaheen nebigaanu ilaalinay calayhi salaatu wasalaam murankaasaa yimi ilaahay murankaa yara bilaabmay buu qur'aanka soo dejiyey wixii ay acmaal wanaagsan sameeyeen oo dhan iyo raganimaday geysteen ilaa maalintaa waa nimankii ilaahay uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam reer beder ilaahay baa taalacdo oo yidhi ifcaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya ilahay baa dembigiina dhaafaya yacni nimanka mansiladaa la gaadhsiiyey wixii ay wacdara dhigeen intaan rabbi ka warramin tan baa loogu horraysiiyey wax looga warramo fii suurati alanfaal maxaa lagu bilaabay aayadda 41 ayaa lagaga warramayaa haniimada sida loo qaybsanayo waclamuu annamaa hanimtum min shayin waa aayadda 41 laakiin aayadda koowaad maxay leedahay yasaluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilahi wاrasuul faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum waaطicuu اllaha warasuulahu in kuntum mu'miniin baa ilaha yidhi war faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum alla ka cabsada oo dhexdiinna waxa hagaajiya waaطicuu اllaha warasuulah alla iyo rasuul ba aqbala haddaad tihiin kuwa mu'miniina baa la yidhi intaa yare muranee soo dhex gashay ayaa rabbi ugu horraysiiyey in loo islaaxiyo koox haddii la isqabto oo mararka qaarkood wax isku tuurtuur iyo dhibba ay gaadho sidii madiine gudaheeda ka dhacday ilaahay qur-aan buu soo dejiyey laleeyahy wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma laba kooxood oo mu'miniinta ka mid a hadday isdilaan faaslixuu baynahumaa baa ilahay yidhi sulxi ku dhex gala ilahay wuxuu ina leeyahy inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum waar dadka mu'miniinta ahi waa walaalo waa walaalo kale lama odhan waa walaalaa la yidhi waa walaalo walaalku waa maxay macnihiisu walaalku waa ninkaad guushiisa ku faraxdo guuldarradiisa ka naxdid dhibtiisa ku dhibto waxalkiisu uu wanaag kuu yahay walaalkaa caynkaasu ku yihi ninkaa walaalaatiina hooye aabaydin wada dhalay wuxuu ku guulaystay kasta waad ku farxaysaa aqoon ha noqoto cilmi ha noqoto masab ha noqoto waa ku farax gelinaysaa waa walaalkaayoo guulaystay wixii dhib soo gaadhaana waa ku naxdin gelinaysa waa ku warwar gelinaysa wax allaaliya wixii dhib walaalkaa ku dhaca wax kastaba ha noqdaan idan ilaahay wuxuu leeyay war mu'miniintu waa walaalaba ilaahay leeyay axkaamtii walaalahee noocaa isu dareenka ahayd bay saytaan ee faaslixuu bayna akhawaykum hadday dhibi ka dhex dhacdo hagaajiya nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa soo gaadhay war odhanaya reer quba ayaa istuurtuuray oo isdilay oo dhagxan iyo waxba xaafadii isku tuurayna waa la ismaagay dabeetana nebigu wuxuu yihi idhabuu bina nuslix baynahum xadiidkii bukhaari waarina dareeriya aan hagaajin aan soo islaaxine nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa islaaxu waa waxa qudhay nebi maxamed jamac ka reebay jamcii salaada iyo imaamnimadii wuu ka hadhay isagoo dad heshiisiinaya ilaa iyo uu bilaal markii dambe salaadu waktigeedii intuu dib u dhacay oo abibakar u yimaado o yidhaahdo war nebigii weynaya abibakarowe dadka ma tukinaysaa markaasuu abibakarna yidhi ha haddii aad aqiinto wuu aqiimay salaaddii markay galeen iyagoo ku jira ayuu nebigu xagga dambe ka soo gaadhay calayh salaatu wasalaam waa salaaddu markaa nebigu abibakar uu ku dhinac xidhan doono ee dadkuna ay u sanqarhayaan oo u tilmaamayaan inuu nebigii yimi abibakarna uu dib u goranayo nebiguna uu rabo inuu tukiyo laakiin uu diiday si kastaba ha noqotee waxaynu leenahay waxay tilmaamaysaa heshiisiinta dadka iyo qiimaha ay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo gurigiisa ku jira ayuu maqlay saxaabigii kacb ibnu malik la odhan jiray iyo ibnu abi xadrad saxaabi la odhan jiray oo dayn isku haya masaajidka gudihiisa oo uu leeyahy war lacagtii halkaa dhig waktigii bay gaadhaye uu kana leeyahy waxba ma hayo oo dabeetana codkoodu kor noqday dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo maradu dee masaajidka gurihiisuu meesha ku nabnaaye maraduu iska soo fayday dabeetana kacb ibnu maalik buu u yeedhay kacb buu wuxuu ku yidhi
markuu u yeedhay kacab baa yidhi labayka yaa rasuula allah ku ateeca ilaahay rasuulkiisiiyow nebigu gacantu wuxuu ugu tilmaamay arninka nuskada yacni badh ka rid ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u ishaaray qad facaltu buu yidhi waan yeelay ilaahay rasuulkiisiiyow nuska aad tidhi ka daa waan aqbalay kii kaluu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qum faaqdihi waar kacoo soo gud baa lagu yidhi riwaayadka qaar baa sheegaa xadiidka bukhaari inta isugu kooban yahay inuu yaro warwarago uu yidhi ma haysta iyo waa kan war nebigu kama aqbalin ma haysta iyo waxaas war kac baa lagu yidhi oradoo ninka lacagtiisa u keen markii uu nebigu ku celceliyey nebiguna hadduu 3 goor wax faro saxaabadu warka kumay soo celi jirin ayuu iska baxay tucumaamadii guntaday ayuu go-ay hoose furay suuquu la tegay yaa iibsaday buu yidhi marka kii hoosuu iibiyey islaam baa ku soo baxdo war saxaabigii nebi maxamed maxaa ku dhacay waa loo sheegay go-a misaad ku iibinaysaa 4 dirham buu yidhi 4tii bay ka siisatay go-agana qaado bay tihi 4 dirhamna qaado dabeetana isna 4tii buu keenay oo ninkii nuska ka daayey intii baa goysay oo wuu keenay idan dayn baa laga heshiisiin karaa oo guri baa la heshiisiin karaa oo dagaal baa laga heshiisiin karaa colaad baa lagu heshiisiin karaa oo qadaaya siyaasiya ayaa qur-aanku tilmaamaya baa laga heshiin karaa ama nebigu calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi moxamed xadiidkii abi bakra oo memberka saaran baa xasan ibnu alcali oo yar dee nebigu wuxuu geeriyooday baa xasan isagoo 7 jira marka xasan oo yar oo inan yaraba isa soo taagay nebigoo memberka taagan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam marna xasan buu eegaa marna dadkuu eegaa markii dambe nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inankayga kani waa waayeel waa oday waa sayid walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana la arkaa in ilaahay ku islaaxiyo 2 kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah oo yacni isdilayo ishaya in ilaahay ku islaaxiyo dabcan dagaaladii muslimiinta dhex maray ee ka dhashay dilkii cuثmaan oo cuثmaan dilkiisii markii la dilay cali ibn abi aalib iyo madiine qoladii joogtay waxay u degdegeen bal horta inay khilaafada islaamiga oogaan oo kala dambayntii iyo dowladnimadii soo celiyaan qoladii shaam joogtayna waxay kaga dhegtay nimankii cuثmaan dilay waxa kale ha dambeeyaan horta qolada hala qisaaso labadaa ra'yi ayaa muran ka dhacay kadibna dagaalaa dhacay dagaaladaasi mudday socdeen cali sidii bay ku dhintay niman khawaarijaa dilay xasan ibnu alcaliyi baa lala beectamay waa khaliifo muslim bale culammadu waxay yidhaahdaan xadiidkii 30ka sheegaya khaliifadu inay 30 sannadood ahaanayso 6 bilood ee xasan baa buuxinaysa bay yidhahdaan oo ku sodonoobaya calaa kullin waa khaliifatu lmuslimiin waa kursigii ugu sarreeyey caalamulislaam oo dhan buu fadhiyaa ciidanna wuu haystaa badan waana khaliifadii xaqa ahaa ciidan badanna wuu haystaa laakiin wuxuu aqbalay muslimiintu inay heshiisiiyaan oo dhiigooda la badbaadiyo kursiga ugu sarreeya inuu siisto inuu aqbalo madaxweynenimada intuu isagu ka daadego ninka ka soo horjeeda oo aan xaq markaa u lahayn isagu kaga xaq lahaa inuu siiyo mucaawiya bnu abi sufyaan inuu yidhaahdo adigu bal maamulka qabo muslimiintu ha heshiiso dhiigooda ha joogsadaan 5 sannadoodoo muslimiintu isdilayeen tuulo may furanin muslimiintii xoogga badnaa cahdigii abibakar iyo cuثmaan iyo caalamkaba dawakiyey markay iyagu isku soo jeesteen tuulo may furanin 5tii sannadood ay isdilayeen caamuljamaaca markii ka dambeysay ayay futuuxaadkii dib u bilaabmeen markaasaa xooggii muslimiintu dib u soo baxay cidda isdishaa dee waa ilaahay baa qur-aan ku tilmaamay fatafshaluu watadhaba riixukum waa inaad fashilayso aad jabaysid idan sulxigu wax kasto war gaal baa lala heshiin karaa muslim kale ka kaalay gaala ayaa sulxi lala geli karaa sulxu xudaybiya nebigu calayh salaatu wasalaam gaal buu la heshiiyey gaaladii maka ka saartay ee dagaalada ku qaadaysay ee dhibta badnayd oo 19 sannadood ay markaa muslimiinta is hayaan sulxulxudaybiya waa sanadkii 6aad ee hijriyada 13 uu maka joogay iyo 6 sannadood 19 sano nimankii nebi maxamed la dagaalamayey oo beder iyo uxud iyo waxaasoo dagaali soo dhaceen ayuu wuxuu aqbalay inuu sulxi la galo inuu heshiis la galo oo weliba uu ka tanaasulo xuquuqdiisii wax ka mid ah markii heshiiska la gelayay
waa kii abu jandal uu yimi oo silsilada ku xidhani wuxuu aqbalay in la celiyo wuxuu aqbalay heshiiskii la qorayay inuu maxay muxamedun rasuulullah bay idhahdeen ma ogolin in lagu qoro bismi illaahi raxmaan raxiim bay idhahdeen ma ogolin in lagu qoro ilaahay inuu raxmaan iyo raxiim yahay bay diidan yihin markaasuu nebigu yihi kay doonayaan ugu qora bismika allaahuma ugu qora markaasay idhahdeen muxamedun rasuulullah ma ogolin maxamed ibnu cabdillaahi ku qoro markaasuu yihi ugu qora markaasuu cali xanaaqo u yidhi waan qoraye wallahi inaanu masaxaynin markaasuu nebigu yihi masax maba ka dhaartay inaanan masaxin ma maxamed ilaahay rasuulkiisi baan ka masaxaya dabeetana nebigaa yidhi aniga tus halkaad wax ku qortay waa tusoo nebigaa masaxay idan tanaazal can bacdi alashyaa sulxi baan ula galay si uu heshiiska ula galo idan ayuha alaxiba sulxigu islaamnimada qiimo weyn buu ku leeyahy siiba markuu yahay muslimiinta dhexdoodii walidalik baa ilaahay wuxuu qur-aanku leeyahy laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas dadku faqoodu iyo shirshirka iyo waxaan loo faqfaqayo khayr in badan oo ka midi ma laha baa la yidhi ka khayrka la ysku farayo iyo ka sadaqada la ysku farayo ee dadka wax looga ururinayo khayrka ku jiro iyo ka dadka lagu heshiisiinaya buu rabbi leeyahy ka maxay aw islaaxin bayna annaas weliba islaaxu baynu naaska dadka barh baa u gala magacaad ku heshid kursi aad ku doonatid mansab siyaasi aad ku heshid labada reer baa soo heshiisiyey si dowladda wax looga helo ama waxa war ma aha dadka waxaa loo heshiisiiyaa waman yafcal dalika ibtigaa'a mardaati illaah cidda samaysa heshiisiinta dadka iyagoo ilaahay raalli ahaanshihiisa doonaya fasawfa nu'tiihi ajran cadiima baa ilahay yidhi ajar weyn baanu siinaynaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala casrigan dambe fitanka iyo imtixaanku way bateen wixii la yaqaanayna way isdaba rogmeen waayo dadkii taariikhda soomaaliyeed salaatiinta iyo dadka magaca leh may ahaan jirin dadka dagaalada hogaamiya iyo fitanka iyo imtixaanka at least waxay ahaan jireen dadka marka reer u heshiinaya iyaga loo yeedhay caqliga uu ku dambeeyo casrigan waxaa soo baxay dadkii la moodayay inay dadka hoggaan u yihiin oo iyagu imtixaankuba uu yahay furso iyo shaqo uu yihi ama manaasib dowladeed ku raadinaya dowladda haddaad wax ka weydo gilgil oo see loo gulgulaa waxoogaa reeraha isku kuuqi waa imtixaan inaad kursi dowladeed ku raadiso inaad masaakiinta isku laysid iyo bulshada aad madaxa isu gelisid dowladda ha yaro daciifto say dowladdu u daciiftaa dadka dhagaa isu geli waa imtixaan yaa samaynaya dadkii ama aqoon-yahan ama siyaasi ama caaqil ama sulطaan sheegen ma wada aha laakiin qayb ka mid ah asalku laakiin waxa weeyaan war dadka heshiisiintooda ayaa khayrku ku jiraa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala heshiisiinta dadku say u qiimo badantay ilaahay wuxuu ku daray inay ka mid noqoto masaariifu zakaa dhaqaalaha zakada la yidhahdo islaamku uu ururiyo meelaha lagu bixinayo meel ka mida inay noqoto oo ilaahay wuxuu leeyahy inama asadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin wاlcaamiliina calayha wاlmualafati quluubuhum maxaa ku xiga wa fi الriqaabi wاlghaarimiina wa fii sabiili اllahi wabni الsabiil sideedda kooxooda la tilmaamay waxaa ka mid ah wاlghaarimiina kuwa daymoobay ee sulxiga ku daymoobay laba reer baad heshiisiinaysa waad isu keentay waad isu soo dhoweysay laakiin xoolaha la ysu sheeganayo magtiiba waxaad ogtahay inaanay bixin karin laba reer oo yar ama laba qabiilo waxay doonaan ba ahaado markaasaad tidhi heshiiska qaata magtuna waa aniga anaa bixinaya waxa la isku hayo laba nin baad heshiisiisay waxoogaa dhowr kun baa la isku hayaa waad heshiisiisay dhowrka kunna adaa bixinayaba intaad soo qaaddaa baad kii la haystay u dhiibaysaa leedahay iska bixi haddaad sidaa ku daymowdo dayni kugu raacdo waad bixin kari weydo zakada in lagu siyaabaad xaq u leedahay muslimiinta tujaarta iyo dadkan waxaysta inta zakada laga qaado inaad zakada ku bixiso maxay islaax bayna annaas oo ilaahay baa leh waalghaarimiina baa ka mid ah waa kii saxaabigu qubaysa intuu yimi yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo mas'ala wax weydiistay nebiga oo leh waxaan heshiisiinaan dad heshiisiinayaan ku daymoobay dabeetana waa kii nebigu u tilmaamayay masaladu saddexdan inay u bannaantay inuu isagu ka mid yihi
mas'alaba saddexda nin ay u bannaantay inuu isagu ka mid yahay ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya qur-aanka la inoogu sheegay dadka heshiisiintiisu dhaarta in loo furo waan ka dhaartay iyo waanu dhaaranay iyo socon mayso walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas baa ilahay yidhi dhaartiinna ha ka dhigina mid lagu hor joogsado in samaha la sameeyo ama ilaahay cabsidiisa lala yimaado amase dadka lagu heshiisiiyo ayuha alaxiba nebiy llaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu tilmaamaya dadkaasi aynu leenahay waa addifaac اlmadani dadka dabka ka daminaya waayo waxa kane hadduu kaco waa dab diin iyo wax walba cunaya haday dagaalada iyo colaadaha iyo balaayadu dham kacdo dhiig baa ugu koreeya dembi la galo waa la banaysanaya walidalik buu nebigu wuxuu saxaabada ku yidhi alaa أخbirukum bأfضل min darajaة الصiyaami والصalaaةi والsadaqati wardadow ma idiin sheegaa soonka iyo salaada iyo sadaqada wax ka fadli badan culamo badani waxay idhahdaan waa nawaafisha la sheegaya cinda almuslimiin saddexdan shay dee waa arkaanulislaamkii waaweynaa wixii ku jiray ama wixii arkaanulislaamka lagu kabayey salaad waa cibaado qaali iyo dadka muslimiinta ah maskaxdooda ay yaqaaniin heerkay xagga alle ka joogto laba ragcadood oo sunno oo salaada subax ka horeeyaa la yidhi khayru min addunya wamaa fiiha khayru ma طalacat calayhi shams ayaa ka khayr badan baa la yidhi cadceediba waxay usoo baxdo idan qofka muslimkii wuxuu yaqaanaa salaadu qiimaha ay leedahay wuxuu kaloo yaqaanaa soonku qiimaha ay leedahay baab gaar oo rayaan la yidhaahdo ama laa cidla lahu nebi moxamed ku tilmaamay soonka wax u dhigmaaba ma jiro soonka iyo fadaaisheedana qofka muslimkaa caqligiisa aad bay ugu weynta wuu yaqaana sadaqada iyo wax la baxa iyo fadaaisheedana qofka muslimka wuu yaqaana saddex shay oo muqararka ah cinda almuslimiin la yaqaano fadiilada ku jirtaa intay tahay ayuu intuu nebigu isku daray buu yidhi wax ka fadli badan ma idin sheegaa saddexdii shay aa taqaaneen fadaaishooda wax ka sii fadli badan adigu fadaaisha sunaanka ku soo arooray sadaqo o dhan soo akri soon oo dhan soo akri waxa ku soo arooray fadiilo ah salaad oo dhan soo akri intaasoo fadiila intaad isku darto nusuusta ku soo aroortay keeda sunno ah ayuu nebi moxamed wuxuu leeyay wax ka koreeya ma sheegaa haddaba saxaabadii waxay dhaheen bela haa ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu ku yidhi nebigu calayh الsalaatu wasalaam islaaxu daat اlbeyn dadka dhibta dhexdooda oo la islaaxiyaa ka fadli badan dadka dhibta dhexdooda taalla mu'miniinta qabaa'ilka isdilaya dowladaha isdilaya reeraha isfuraya dadka kala guuraya shirikaadka burburaya waxaa muslimiinta ishayse dhexdooda oo la islaaxiyo ayaa ka fadli badan buu nebigu yihi xadiidkii abi daawuud waliba riwaayaadka qaarkood waxa uu xadiidkaasi riwaayaadkiisa qaar ka midi waxay sii tilmaamayaan faina fasaadu daati اlbeyn hiya alxaaliqa markuu nabigu tilmaamay dadka dhexdooda oo xumaata waa alxaaliqa waa xiirta riwaayaadka qaarkood baa waxay tilmaamayaan idinma lihi timahay xiirtaa iyo diintay xiirtaa dee adigu meesha colaaddu ka dhacdo xisaabi mid yar iyo mid weyn iyo qof dumara iyo nin caalima iyo waayeel iyo dhiig muslim wax walba oo la banaystaa markay colaaddu dhacdo geelashaa la qaadaayo xoolaha muslim cirdigaa la banaystaa reer hebel caydiisa iyo gabay ku cay oo kan ku cay oo waxan ku cay oo caydaa la banaysta saddexdii uu nebi moxamed xajkii u dambeeyey ee uu nebi moxamed xajo dee kaasoo qurunbaabu xajeeye saddex khudbadoodoo uu jeediyey saddexda khudbadoodba waxaa ku jiray war ma idinka warrama war maanta waa maalinma war bishani waa tuma war beledkani waa kuma iyagoo beledullahi alxaraam taagan ama carafo taagan marka uu intaasoo su-aalo weydiiyo wuxuu nebigu saddexda goorba ku celceliyey war hoy dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinuba xaaraan buu idinka yahay sida maalintiina tan bishiina tan beledkiinani uu xaaraan u yahay intaba waa la banaystaa hadday colaad u dhacaan cirdigaa la banaystaa oo markaasaad arkaysaa qaar afmaalla ah oo gabay caya un tirinaya iyo reer hebel caydooda iyo waxooda ka warramaya waxaan jirin iyo wax jiraba isku daraya maalkaa la banaystaa iyo waxa reer hebel leeyihin waa la qaadaa dhiiggaa la banaystaa iyo reer hebel halka lagu arkaba kawbaa laga siiya waa saddexduu nebigu ka digayey ee saddex khudbadood oo maalintii sagaalaad iyo maalintii labaad iyo maalintii yowm alxaj alabarka yowm naxarka
iyo ayaamu tashriiqa maalinta labaad saddexda khudbadood ee uu jeediyey saddexdaba uu ku tilmaamay war dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo naftiinnaba waa idinka xaaraan uu nebigu tilmaamayo uu lahaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd aw dulaalan yadribu bacdukum riqaaba bacd idan hiya alxaaliqa diintay xiirtaa haddaan naf iyo maal iyo cirdi toona la nabadgelinaynin diinta soo hadhay maxay noqonaysaa haddaad intaba la xiiro diinta kuu soo hadhaysaa maxay noqonaysaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxgaanay colaaddu sawbataa la leeyahy camalkiinni la aqbali maayo camalkiinni la aqbali maayo marka kala tagtaan isdishaan soo innaga xadiidka ku soo marayni ayuha alaxiba nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy ma camala bnu aadamu shayء afضala min الصalaaة bini aadamku ma sameeyo wax ka fadli badan salaad iyo dadka salaaxu daati اlbeyn iyo khuluqun xasan buu nebigu ku tilmaamay wuxuu nebigu inoo tilmaamayaa qof kasta oo waagu markuu u baryo sadaqa ku waajibtay sadaqaadka waxaa ka mid ah tacdil bayna الnaas aw tacdil bayna اثnayn laba dhexdooda inaad u cadaalad samay inaad u heshiisiiso afضal الsadaqa islaaxu daati اlbeyn xadiidka loo sheekh اlalbani uu markii dambe saxiixiyey taraajucaadkiisu ku jira axaadiistu markii hore daciifiyey markii dambena uu ka noqday ee uu tasxiixiyu ku jira afضal الsadaqa islaaxu daati اlbeyn buu nebigu leeyahy alayh الsalaatu wasalaam idan ayuha alaxiba waa fadiilo weyn saa awgeed waxgaradka iyo waayeelka iyo aqoon-yahanka waxaan u tilmaamaynaa war heshiisiinta ku dadaala oo dadka inay heshiisiisaan mihnad ha idiin noqoto iyay mihnad idiin noqonin hadal xanaf leh iyo colaad iyo isku dir iyo maagis shaqaha ka dhigin heshiisiinta dadka la heshiisiiyaa waa waxyaabaha naadirkee nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu ku tilmaamay beentu xataa inay ku bannaantay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka bukhaari warinaya wuxuu leeyahay laysa alkadaabu aladi yuslix bayna الnaas fayanmi khayra aw yaquulu khayra layse alkadaabu beenaalaha ma aha buu nebigu yidhi aladi yuslix bayna الnaas ka dadka dhexdooda samaha ka raadinaya oo fayanmi biduuni tashdiid markaad akhrido waa khayr faafinta haddaad shadana waa namiimnimada iyo waa shar faafinta oo dadka dhexdooda faafinaya khayr ama khayr u kala sheegaya qofka muslixee dadka hagaajinaya wuu la faqaa qolo walba gaar buu loo fadhiistaa cid waliba waxay tabanaysay sheegataa cid waliba waxa qallafsana ay sheegto ma soo raro inta khayrka luu raraa qolada kale markuu la hadlayo wuxuu idhahdaa nimankii reer hebel waxaasaan ku arkay ma bale waxay yidhaahdaan hadalkay yidhaahdeen xataa hadday iyagu meel qalloocan ula jeedeen meesha khayrka lagu raraa saasay sheegeen oo saasay sheegeen oo saasay sheegeen kadaab maaha bay culammadu yidhahdaan bale imaamu nawowi wuxuu leeyahay waالظaahiru ibaaxatu xaqiiqatu nafsi اlkadib lakina aliqtisaara cala tacriidi afdalu buu yidhi xadiidka daahirkiisu wuxuu sheegayaa xataa been dhaba haddaad u qasdido aad ku heshiisiinaysa inay bannaan tahay laakiin buu leeyahy culammadu waxay yidhaahdaan inaad tacriidka iyo dulmarka iyo tawriyada martid ayaa ka fadlimay inaad been qaqayaxan sheegto calaa kulli xaal xadiidka culamada barh baa waxay ka daliishanayaan in dadka islaaxintoodu dadka barh baa warka waxay raraan inta dadka isku dirta inta dadka bal had qadiyada u fiirso inta dadka lagu heshiisiinaya xataa beeniba ha soo yaro dhex gashee khayr baa lagu helaa inta dadka isku diraysa xataa runna ha ahaatee runtaa naar baa lagu galaa u fiirso waa run naar lagu gelayo iyo maxay iyo been khayr lagu helayo haddaad intaad reerka soo dhegaysato warkii ay sheegayeen dee reeruhu markay isqabtaan kolley war kululun bay sheegi doonaan wixii kululaa intaad soo qaaddo aad tidhahdaa caynkaasay lahaayeen oo saan bay lahayen oo saan bay lahaayeen namiimiyaatay qataat laa yadkhulu اljannata qataat aw namaam buu nebigu yidhi jannada ma galo diradiraaluhu jannada ma galo buu nebigu yidhi alayh الsalaatu wasalaam namaam baa tahay xataa haddaad tidhahda wallahi run baa sheegaya runtaadaasaad namaam ku tahay runtaadaasaa naarta lagu galaa waayo waa run qasdigeedu yahay maxay in dadka la isku diro ma run khayr waddaba markaan hebeloo ku xantay intaan xantiisi soo raraan ku idhahdo wallahi haddeer caynkaa iyo caynkaasu ku lahaa waa isku kii diraya walow aan run sheegayo waa run aan janno lagu urinaynin waa run aan janno lagu tegaynin waa run xun
إذن أيها الأحبة isku dirku diintu ma banaynin waxyaabahaasi islaaxa in la raadiyaaba fiican dadka la dhex galo islaaxu waa inaanu diinta ka hor imanin isaguna shuruuduu leeyahy waxay culammadu yidhahdaan sulxi kasta oo muslimiinta la dhex dhigo oo uu ku jiro laba shay ilaahay raalli ahaanshiyihiisu iyo labada isaya raalli ahaanshiyihiisu cadaaladna ay ka muuqato ama cilmi iyo cadaalad ku salaysan waa sulxi la aqbalaya bay yidhaahdaan nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy aلsulxu jaa'isun bayna almuslimiina ilaa sulxan axalla xaraama aw xarama xalaala dadka muslimiinta wixii lagu dhexdhexaadiyaa waa bannaan yihiin mid mooyaane xalaal lagu xaaraantinimaynayo ama xaaraan lagu xalaalaynayo yani xuduudda hadduu sulxigu ka tallaabayo ma bannaana oo maalan xadiidka saxiixa ku soo arooray bukhaari walo reer baadiye ah nin reer baadiye ah baa nin kale inankiisii shaqaalanimo uga qaatay dabeetana xooluhu u raacayay odaygii xoolaha inanka raacsaday ayuu inankii islaantii u weydaartay dabeetana waa fara xumeeyey hadhow arrintii markii la ogaaday ayay labadii oday wada hadleen labadii oday markay wada hadleen baa waxaa lagu heshiiyey war arrintan aan dambabasno 100 adhiya iyo walida jaariyad yarna aan ku siiyo 100 adhiyana qaado saasaa sulxi heshiis meel dhaxaa lagu heshiiyey kii inanka dhalay ayaa meelaha wax warwaraystay culammadu uu tegtago waxbuu soo ogaaday wuxuu ogaaday inaan waxba lagu lahayn inankiisa in la jeedaluun buu hayo inan yar buu ahaa ninkan islaantiisa ay hayd in la rajmiyo haddii ay qarato dabeetana labadii nin baa isqabsaday sulxigii waa socon waayo waa isqabteen nabigaa la isula yimi calayh الsalaatu wasalaam kii acraabiga ah baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ninkaa noo garnaq oo ilaahay kitaabkiisa noogu garnaq buu yidhi nebigu wuxuu yidhi waa aqbalay inaan ilaahay kitaabkeeda un ku garnaqo kii kaloo ka yara aqoon roonaayo dee warka soo helayna ayaa yidhi ilaahay kitaabkiisana noogu garnaq hadalkana iyo ogolow inaan anugu bilaabo soo bilow baa la yidhi warkiisii buu bilowday warkii buu sheegay wuxuu yidhi inan aan dhalay buu nigani shaqaale u haysto waa kaasoo gabadhaasuu ninkaa xaaskiisii buu dabeetana fara xumeeyo dee saasaa dhacday dee waxaanu ka heshiinay intaasi marka waxaan ogaaday inaan dee inankayga lagu lahayn inankayga 100 jeedal iyo taqriibu sana in 100 jeedal lagu dhufto sanadna la musaafuriyo in inankayga lagu leeyaan xoolahan laygu lahayn iyo walidadan iyo waxa kale nabigu waa garnaqay mar hadday dee gar tahay waa gar waana ilaahay xuduuddiisii xuduuddu markaa musaalaxada ma gasho alxuduud musaalaxa ma gasho beetana waxaa la yidhi inankaaga intaad sheegtaa lagu leeyahay ninkanna 100kii adhiga iyo inantiiba celi baa lagu yidhi saxaabi halka taagana waxaa la yidhi orod islaantaa u tag ninkaani qabayo haddii ay qirato hala rajmiyo hadday qiran weydana dee waxba laguma leh kaa qirtay unba labada qof hadduu mid qirto midna dafiro kan qirto unba xukunka lagu qaadaya kan kale cidi daan 4 markhaati laga wixii la keenayna cidi waxba ku qaadi mayso iyana waa qiratay oo xukunkii waa lagu qaaday idan culimadu waxay yidhahdaan sulxigu hadduu ilaahay xuduuddiisa ka xadgudbayo sulxigaasi sax noqon maayo oo sulxi kasta oo faasida waa muntaqid wixii lagu qaatayna waa marduud buu ibnu xajar leeyahy raxmat ullaahi calayh idan ayuha alaxiba sulxigu waa inuu labada qof ama labada jamaacays ay wax raalli gelinaya noqdaa maaha in la qasbo la yidhaahdo sandulla ku qaadanaysa kaasina sulxi maaha rida almutakhaasimeyn waa inay joogaan sulxigu bay yidhahdaan labada ishayaa waa inay ahliya leeyihin dad ahliyadii sharcigu uu sheegayey dad sulxi qaadan kara oo ahliyadii le waa inay yihiin waa inaan ilaahay xuduuddiisa ku jirin waa inaan ilaahay raalli ahaanshihiisa ku jira idan shuruudaha sulxiga ay culimmadu tilmaamaan markuu yeesho ayuu sulxigu khayr yahay idan ayuha alaxiba warka waxaan kusoo koobaynaa dadkoo la heshiisiiyaa waa diin waa wax ilaahay loogu dhowaado waa kaa ilaahay leeyay ciddii samaysa ibtiغaaءa wajhi اllaah u samaysa fasawfa nu'tiihi أjra cadiima ilahay ku tilmaamayo ajar weyn buu leeyahy ama nebi moxamed leeyahy alayه الsalaaةu wasalaam waa wax ka fadli badan sunankaasi
salaad iyo soon iyo sadaqaba wax ka fadli badan inuu yahay idan dhibaatooyinka maanta waddanka ka taagan waxaa habboon in islaax lagu raadiyo oo dadka acyaanta ah ay sulxiga ka shaqeeyaan oo aanay noqonin acyaantu dad fitnada ka shaqeeya dad imtixaanka ka shaqeeya siyaasiyiintu aanay noqonin dad dhiigga bini aadamka ku baaci mushtareeya kursi ku raadsada fawda uu meel ka abuuro si kale dawladda wax uga doon laakiin reero la kiciyo iyo dad la isku diro iyo mushkilad la sameeyo diin maaha inaad ku raadiso kuraasi lagu raadiyo aakhirada in adduun lagu raadiyo maaha aakhirada intaad tuurto inaad adduun ku raadisa maaha inaad nabad heshaa oo islaax heshaa ka dawladda haystaba way faa'iida ugu jirtaa ka shacabkaabay faa'iida ugu jirtaa ka siyaasiga hungurigaabay faa'iida ugu jirtaa waddankao dhan bay faa'iida ugu jirtaa idan waxa waddankao dhan faa'iida ugu jirto iyo ummadda muslimiinta ah oo dhami waa inaan dhiig muslim daadan in nabad lagu soo dabaalo odhan mayno maxaa dagaalku u dhacay maxaa la isu qabtay dhac waa qadar laakiin waxaan leenahay war waa in islaax lagu dabaalaa waa in dadka caqliga lihi caqliga adeegsadaan oo sharciga la adeegsadaa oo maanka la adeegsadaa oo waxa ka ratibmaya ay muuqataa war adduunka maxaa ka ratibmaya dad la laayo 100 qof aad disho maxaa ka ratibmaya reer hebel haddaad mariso maxaad helaysaa waxaynu isugu faanaynoo dhami waa reer hebel way iga dhimasho batay soo intaa maaha iyagana 100 baanu ka dilay anana 5 baa naga dhintay waxba maad faa'iidin 105 Soomaaliyeed umad aakhir qabadsiis wax kale oo faa'iida adna wax maad faa'iidin reerku wax ma faa'iidin cid wax faa'iiday ma jirto waxaynu isugu faanaynaa isku haysanoo dhami reerka sabir laayna wuxuu la sabri laayay waa aakhiraan idinka badan kuwan wala waxbaanu dhageysanayna aakhiraan idin badinay weeyaan waxba ayaha la xibba dhiig bini aadam wax lagu faana maaha dhiig muslimna wax lagu faana maaha hanti muslimeed oo la qaadayna wax lagu faana maaha cirdi muslimeed iyo sharaf muslimeed oo wax la yeelayna wax lagu faana maaha idan waxaan leeyahay dadka qiyaadada ah ee ummadda u talinaya hadday madaxda dawladeed tahay iyo hadday madaxda shacabka ku jira tahay iyo hadday aqoon-yahan tahay iyo hadday culamo tahayba war khayr shaqaysta oo dhiigga muslimka badbaadiya aakhiradiinana saasaa faa'iida idinku jirtaa adduunkana aad nooshihiinna saasaa faa'iida ku jirta sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi